الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مدن يالي مروين أنيقا حلبان عبد الشريع جامع عيار جعل وحان مدى الصوماليات قارهان باشا إسكالي كرسيقال لمبر هوب إبر سديد سقال كور قلنية إن أنا نوترتمين أما أنا اندفاعين مركلة كرسيقاس sababahan soo socda awgood waxaan ka mid ahaa labadii xildhibaan ee diiday ansixinta sharcigii loo yiqiin 17 Sebtembar ee dalka loogu jihayay doorasho dadban sidaas ay tahay waan ogolaaday sharciga maadaama xildhibaanada badankood majority isku raaceen ilaan waa nidaam dimuqraadiga siduu yahay labo inkastoo la isku raacay nidaamka doorashada dadban haddana waxaa muuqda in la baalmaray nidaamkii lagu heshiiyey in doorashada la waafajiyo habraacyadii lagu heshiiyey mudanayaal marwooyin waxaa laga joogaa 6 sano markii kursiga xildhibaannimo ee aan ku masalo Soomaalida gaar ahaan beesha Maxamed Amareer Wagardhac la ii dhaarshay 25 January 2016 kana mid noqday baarlamaankii 9aad oo haddana mar kale dib la igu soo doortay baarlamaankii 10aad 13 November 2016 aniga oo ku soo baxay doorashadaas codkii koowaad waxaan halkan mahadan la soo koobi karin uga soo gudbinayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaan doorashadayda aan ku matalo baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo intii xilka aan hayay si wanaagsan ila shaqaysay iguna taageertay go'aano adag oo aan magacooda ku gaaray shaki kuma jiro in qof xil qaaday laga tirsan karo eedo badan taasna waxay ka mid tahay sunnada nolosha balse waxaan leeyahay intii suurtagal ah oo Soomaali qaban karay nin sameeyay baana mudanayaal iyo marwooyin waxaan aaminsanahay in intii aan ka mid ahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya aanan marna ka aamusin joorfalka iyo tacadiyada loo geysto dalka iyo dadkaba codkaygana aanan calaf ku doorsan kitaabkii aan marayna ka run sheegay waxaan u dhaartay ma aha deegaan gaar ah ee waatan guud ee dalka dadka iyo diinta sida aad la socotaan waxa halku dhagi ah xaqu hadduu qaraar yahay soo qotomi ma aha waxa aniga oo magaciina ku hadlaya aan codkayga ugu hiliyay ummadda Soomaaliyeed anoo og xaq hadalka inay dhibsadaan waxa aan ugu yeero jilayaasha siyaasadda ee Soomaaliya waxaan aaminsanahay inay dambi tahay aamusnaanta marka ay jiraan arrimo mudan in laga hadlo markasta ay bulsho ka weecato run sheegidda waxay la yaabtaa kuwa xaqa ka hadla marna kama cabsan inaan codkayga kor ugu qaado ka hadalka xaqa iyo cadaaladda walow dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inaan u hadlo sida iyagu rabaan ama ay la tahay haddii dadka intiisa badani xaqa ka hadli lahaayeen xaqna ku dhaqmi lahaayeen waxaan qabaa in Soomaaliya ay noqon lahayd dal horumar ah oo adduunka intiisa kale ay u soo shaqo tagto sida aad la socotaan waxa dalka ka socda waxa loogu yeero doorasho dadban oo baarlamaanka federaalku ansixiyay 26 Sebtembar 2020 sida aan kor ku soo xusay baarlamaanka federaalka Soomaaliya kalfadhigiisa 7aad kulankiisa 6aad ee wadajirka ahaa oo ka koobnaa golaha shacabka iyo aqalka sare oo lagu qabtay xarunta golaha shacabka 26 Sebtembar 2020 ayna goobjoog ahayeen 215 xubnood oo ka mid ah golaha shacabka iyo 40 xubnood oo ka mid ah aqalka sare waxay 252 xubnood u codeeyeen in dalku aado waxa loo yaqaan doorasho dadban 2 xildhibaan oo anigu aan ku jiro way diideen sharcigaas halka xubin ay ka aamustay
dad badan oo maalinta ay la yaabanaa markaan diidayay ansixinta sharcigaas doorashada dadban hadda waxay igu taageereen go'aankaas masiiriga ah ee aan qaatay. go'aankaas iskama qaadane wuxuu ii ahaa mid ka tarjumayey waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay. waxaan u arkayay in doorashada dadban aysan maslaxo ugu jirin dalka iyo dadkaba. haddana waxaa idiin muuqata itifaalaha iyo foolxumada ka socota maamulada dalka ha ahaadeen heer federaal ama heer gobol, oo xataa habraacyadii ay iyagu isku jimeeyeen iska daa dastuur la ilaashee inay baalmareen oo ay qofkay rabaan iska soo qoranayaan. sababtaas iyo kuwo kale oo badan dartood baan kala xishooday in magacayga lagu xuso taariikhda oo jiilalka soo koraya aan rajaynayo in buugaagta taariikhda loogu dhigi doono haddii eebba idmo, una diiday ansixinta sharcigaas doorashada dadban. sidaas daraaddeed waxaan ku wargelinayaa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha iskale kursiga Hob eber 89 inaanan difaacayn una tartamayn mar kale kursigaas sababahan soo sheega awgeed. difaacayn waxaan leeyahay un ka wadaa dadka qaar baa laga yaabaa inay fahmayn maadaama kursigan aan 6 sano anigu aan ku fadhiyay markaad kursiga ku fadhiso oo champion baa tahay dhinaca feerka hadaad ka eegtaan waxa weeye waa difaacaysa qofkii lagu keeno waad iska dhicinaysa. marka sidaa ayaan ula jeedaa. waxaan u rajaynayaa murashaxiinta kursigan u tartamaysa inay ilaaliyaan magaca iyo maamuuska kursigan oo ku astaysan kuraasta xor iyo xalaal oo beesha iska leh ku soo doorteen xildhibaankoodii sanadkii 2016 xildhibaankaas oo aniga ahaa. doorashadaas oo ka dhacday magaalada Cadaado dad baa waxa laga yaabaa inay leeyihiin xildhibaan Cayaar Jecel war murtiyeedkan maanta uu soo jeedinayo muxuu u soo jeedinayaa maahan inaan leeyahay kursi baa layga boobayaa kursi baa layga dhacayaa ee waxaan u leeyahay waxaan weeye maadaama aanan mabdi'iyan u aaminsanayn doorashada dadban muddooba waxaan micnaha go'aansaday inaanan micnaha ka qaybgelin. Soomaalida waxay tiraahdaa baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabbaa. marka taas suurtagal igama ahan. waa dariiq cusub aan u jihaynayo dhallinyarada iyo kuwa xildhibaanada mustaqbalka Soomaalida ee laga rabo inay sidaas oo kale go'aamo u qaataan. waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxda dowlad goboleedyada Galmudug oo aan leeyahay ka xishooda inaad gacmaysaan doorashooyinka guud ee kuraasta golaha shacabka ee hadda ka bilaabatay Galmudug. doorashada oo la boobaa waxay dhashaa isku dhac iyo dib u dhac ummadeed. waan aragnay dhibkii ka dhashay tii 1969 taasoo keentay in madaxweynihii dalka Cabdirashiid Cali Sharmaake rabbi ha u naxariistee maalin cad lagu dilay magaalada Laascaanood kadibna ciidamadu dalka la wareegeen. magaalada Dhuusamareeb waxay ahayd meeshii maalin cad kuraastii loo tartamayay lagu boobay una boobay xisbigii marka dalka ka talinaya oo SYL. waxa yar ay hadda Galmudug haysato waa maamulkaas la isku yabyabay. waxa madax lagu yahayna waa intaas. haddii intaas la waayo waxa iman kara waa nabadda oo faraha ka baxda. sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa in laga fogaado wixii kala irdhayn kara ummadda. doorashaduna noqoto mid qabaa'ilada kuraasta iska leh ay si xor iyo xalaal ah ugu tartamaan. waxaan si gaar ah hoosta uga xariiqayaa uguna digayaa in la isku dayo faragelinta kursigan eber 89 oo ay leedahay beel habsaami qaybsi fac weyn oo soo jireen ah leh. waxaan qabaa in haddii loo madax bannaanayn waayo beesha kursigeeda inuu dhici karo qalqal amni oo saameeya Galmudug oo idil. gallad iyo guul. Soomaaliya ha noolaato. wabilaahi tawfiiq.